waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto iyo waalidiinta dugsiga ardayda dugsiga iyo macallimiinta dugsiga waan salaamayaa salaam kadib waxaan la wadaagayaa waalidiinta macallimiinta iyo ardayda inta waxaan la wadaagayaa fasaxa dugsiga hoose dhexe sare ee Nageyle kaas oo bilowday maanta oo bishu tahay 18 bisha 3 2020 fasaxaas oo la xiriiro amarka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya si loo xakameeyo cudurkan loo yaqaan coronavirus oo ah cudur dunida inteeda kala ku baahay Soomaaliya hadda laga sheegay kiis kamid inuu soo gaaray faafitaankiisa si loo yareeyo cudurka awgiis ayaan dawladda ayaa martay in la xiro goobaha waxbarashada dugsiga wuxuu ka mid yahay goobaha waxbarashada dawladdu amar ku bixisay sidaas awgeed dugsiga saasaan ku fasaxnay laba isbuuc ayaan dugsiga fasaxnay wixii ku soo kordho fasaxan waxaan la wadaagi doonaa waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardayda inta waan la wadaagi doonaa sidoo kale cudurkan faafitaankiisu uu yahay cudur si fudud ku faafo taabashada iyo wixii la halmaado qunfaca hindisada iyo hadalka ku faafo waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka taxadiraan isla markaana ay feejignaan dheeri muujiyaan isla markaana ay sameeyaan waxyaabaha cudurka looga hortagi karo sida nadaafadda guud inay ku dadaalaan ay gacmahooda mar walba dhaqaan ayaan ugu baaqayaa bulshada meel kasta ay joogto wixii soo kordhan insha Allah ta'ala isla soo socodsiin doonaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.